هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وهذا الدرس الثاني من كتاب البيقونية لأخونا الشيخ نور عبد الله أبو فيصل. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسم الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. waxaan ku guda jiray kitaabkii manduumadii bayquuniyada. dersigan waa dersigii labaad. waxaan soo sheegnay un muqadamada oo sheekhu uu kaga soo hadlayay in yar, oo waxaan ka soo hadalnay muqadamo iska yar. abyaadkana marka waatan hadda la akhriyey, walaalkiina uu akhriyey. marka sheekhu wuxuu yidhi abda-u bilxamdi musalliyan calaa muxamadin khayri nabiy ursila. waan soo tilmaanay hadalka sheekha waxa uu micnihii uu ka yidhi iyo tarjumadiisii waxa lamid ka ahaa. maanta marka waxaanu soo gaaray oon ka hadlaynaa hadduu alle subxaana wa tacaala uu yidhaahdo xadiidka saxiixda ah. abda-u bilxamdi ay abtada-u nadmi hada bilxamdi. marka xaal ayaa laga cabiraya, xaal anigoona ah musalliyan calaa muxamadin, anigoo ku salinaya xaal nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam, nabigaasoo khayra nabiyin ursila oo khayra nabiy ursila. ursiladaas marka waxaa nidhi waa alfu liطlaaq wax la yidhaahdo. kadib sheekhu intaas wuxuu sheegay un muqadimadaas yarta ah, intaas un baan micnihii kasoo sheegnay. khayra nabiy ursilana waan tilmaamnay nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu ahaa yani khaatim اlambiyaa inuu ahaa, waxaana lala soo diray ilaa thaqalayni insan wa jinnan, o alla subxaana wa tacaala lasoo diray. sheekh marka gabaygan maanta wuxuu ku bilaabay wadii min aqsami اlxadiidi cidda. wadii ismi ishaaradaas waxay ku dhacaysaa un iqsaamta xadiidkaas ayaa micnihii lagu tirinaya. wadii midani ama ha naqato kitaabka inuu micnihii markaas ayada ah uu qoray, ama markuu qoray kadib ha yidhaahdo, labadaba waa wax macquul ah. marka min aqsaami alxadiida mutacaliqu biqowlihi cidda ayay micnihii markaas lagu xidhaya. marka wadii midani oo midaan aniga maskaxdeeda ku jirto oo min aqsaami alxadiidi, aqsaamtu xadiidka uu leeyahay cidda way badan yihiin. wakullun mid waliba oo wakulu waaxidin mid waliba oo aqsaamu lxadiid ka mid ahna yani ataa oo sayaأti waa imaanaya, oo ilahay ataa amr اllahi falaa tastacjiluuh. bimacnaa ataa waa ficil maadi lakin waa sayaأti. wakulu waaxidin ataa waxada ay saadkuru laka bacda hadihi اlmuqadama. muqadimadan kadib waxaan kuu sheegi doonaa aqsaam alxadiidi wahiya cidda. aqsaamtu xadiidku inay badan tahay ayaan kuu sheegi doonaa. xadiidku marka dadku way ku kala duwan yihiin. culum ahaana kutub badan ayaa laga qoray, oo culimmadu islaamku kutubo badan ayay bimacnaa ka qoreen. waxaad ogaataa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaaءakum faasiqun binaba'in fatabayanuu.
sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa ku yimid nadara allahu imra'an samica mina shay-an faballaqahu kama samica faruba mublaqu owca min asaamic. xadiidka tirmidi ayaa soo saara, waa xasan saxiixuu leeyahay. marka gudashadu siiqadaas ayaa loo kala gutaa. qofka marka wax uu gutana oo uu maqlana inuu micnihi sida ay tahay xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu u guto. riwaayadda kale waxay leedahay faruba xaamilu lfiqiih ilaa man huwa afqahu minhu waruba xaamil fiqiih laysa bifiqiih. waa kaa nafteedana waa xasan uu leeyahay imaamu tirmidi, abi daawuud iyo ibnu maajah iyo axmed intaba way soo saaraan, inkastoo sanadka dambe culimadiis ay culimada ay ka hadlaan. sanadka waan soo sheegay maxamed ibnu siriin muqadamada wuxuu ku yidhi akhbaarta sida micnihii marka la qaadanayo xadiidka saxiixda ah iyo markaan la qaadanayn. ila sheekhu wuxuu leeyahy wadii min aqsam alxadiidi cidda. maxamed ibnu siriin wuxuu leeyahy lam yakunuu yas'aluuna can ilisnaadi. marka hore sanadka laisma weydiin jirin. falamaa waqacat ilfitna, fitnadii markii ay dhacday, qaaluu waxay yidhahdeen samuu lanaa rijaalakum, rijaasha aad wax ka warinaysaan noo sheeg. fayundaru ilaa ahli sunnati fayu'khadu xadiiduhum. waxaa la fiirinayaa haddii qofka xadiidka micni laga warinaayo uu yahay qof ahli sunna ah, waa la qay wayandur ilaa ahli lbidcati falaa yu'khadu xadiiduhum. saxiix muslimka safxada 15 muqadamada. laakiin dadka qaar waxay umalaan muqadamada kitaabka inuu ka mid yahay saxiix muslimka. muqadamadu kitaabka kala mid ah oo sheekhu yani shuruudiisa kama mid ahayn oo ma shardin muqadimada. muqadimadu waa laga heli karaa waxyaalo kala duwan, laakiin bismi illaahi markuu ka bilaabay sheekha xadiidka koowaad meeshuu ka bilaabanayo halkaas waay. laakiin muqadimadu yani ma ilzaamin isagu naftiisu imaamu muslim raxmat ullahi caleyh, leannahu bukhaari iyo muslim laba nooc ayaa micnihii hal farqi ayaa udhexeeya. midna wuxuu wax ku qaataa in lala kulmo qofka iyo mucaasara wax la yidhaahdo, laqi iyo mucaasara. kan kalena mucaasarada bis isaga uu ku wariyaa. marka farqigaas ayaa ayaga naftooda u kala dhexeey. midna waa kan koowaad, kan labaadna waa darajada labaad ay yidhahdaan. kutubtan marka culuum alxadiid, dadka qaar oo waxay ka hadlaan iqsaamtan culuum alxadiidka iyo mar dhowaa la keenay. maraa inta badan waxaa la caaya albani waxbuu daciifiyaa, waxbuu saxiixiyaa, wax noocaas oo kale ah. culumtan ma ahayn wuxuu sheekh albani raxmatullahi caleyhi, sheekh muqbil iyo inta kale culumada muxadisiinta oo qarniga joogtay waxay bilaabeen ma aha. hadda sheekh cabdilmuxsin cabaadaa jooga, sheekh rabiic ibn haadiyaa jooga, rag badanaa haddaba jooga. laakiin culumtan ma waxaa bilaabay ragga mucaasiriinta? maya, ma bilaabin. culumtan culum alxadiidka la yihahdo maxamed ibnu siriin waa kaa xilligaas muqadamada saasuu ku leeyahay. maxamed ibnu siriin waad ogtihiin. ayib waa micnihii riwaayad abi hureyre oo ka wariyaa jirta. wuxuu leeyahay cilmigan alcilmu ljarx wa tacdiilka isaga naftiisa ma maantuu bilaawday. isagu naftiisu ma maantuu bilaawday, ma bilaaban. waa kan hadda hadalkan akrin maxamed ibnu siriin naftiisa wuxuu leeyahay haddii qofka ahlu sunna u yahayna qolkiisa waa la qaadanaya, haddii ahlulbidca u yahayna lama qaadanayo. ظahara alcilmu aljarxi watacdiil wاlkalaami calى الruwaati wamacrifatu mutasila oo munqaطic min alasaniid wamacrifatu اlcilali khafiyati wadahara alkalaami fi bacdi الruwaati lakin calى cilati الruwaati majruuxiina fi awil amr. marka xilli badan oo micnihii soo socday uu soo bilaawday cilmigan in cilada xadiidka la raadiyo iyo waxa uu yahay nimanka majruuxiinta iyo wax lamid ah. kadibna culimmada way toosiciyeen oo marka hore bacdama uu soo bilaawday, marka dambena way badiyeen culimada oo baxth alculuum alkathiira ayaa laga sameeyey oo bilxadiid min naaxiyati dabdihi, qofka dabdigiisa iyo wax lamid ah in micnihii la ogaado. ayib iyo kayfiyada taxamilihi wa adaa'ihi wa macrifatu naasikh wa mansuuq, waxa noocaas oo kale ah marka dambe culimada dib ay u baareen inay ogaadaan cilmigan oo loo waasiciyo. laakiin cilmiga waa uu soo jiray markiisa hore. maxamed ibn siriin ayaa wax ka warinaya oo min taabiciinta ka mid ahaa. uma imaam ashaafici raxmat ullaahi caleyhi kitaabkiisa la yidhaahdo arisaala ayuu isaga naftiisa qeyb ka mid ah uu ku tilmaamay ka cilmi اlusul wa cilmi اlfiqh wa cilmi اlxadiid madla kitaab arisaala iyo kitaab alum kilaahuma imaam ashaafici waa uu ku tilmaamayay. uma culumta way sii socotay, istiqraa ayaa laga sameeyey, culimmadu way sii babaareen. waxaa waaye culimo badanaa markaas kadib kutubo badan micnihi ka qortay. ayib waxaa u horeeyey marka raami hurmazi
isagu waa abu xasan waxaa la yihahdaa abu maxamed xasan ibnu cabdiraxmaan ibnu khalaad yani ibnu khalaadin oo raam hurmasi loo yaqaano ayaa isaga wuxuu ahaa 360 taqriiban dadka ugu horeeyay wax qoro ayuu kuma kitaabkiisa almuxadith alfasil bayna raawi walwaaci kitaabkaas oo isaga u lahaa kadibna kutubo badana micnihii markaas kadib culimada ay sameeyeen almuxadith alfasil bayna raawi walwaaciya oo isaga hadda aan tilmaanay uu lahaa وكتابكاس كدب معرفة علوم الحديث أيا كمد أها وأولها أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحاكم نسابوري أولها كتابه إمام حاكم أيا سجن إسكالها أفر بغل الشنطي تقريبا وحاك الله كمد أها الكفاية في علم الرواية أولها خطيب البغدادي أو سجن أبو بكر أحمد بن علي البغدادي رحمة الله عليه يونيك لي أبو النعيم الأسبهاني oo isagana axmed ibn cabdullaahi alasbahani la yidhaahdo oo wuxuu dhintay 430 taqriiban ayuu isagana u dhintay waxaa kaloo ka mid ahaa kutubta macnihii laga qoray ataqriib wa taysir limacrifati sunan albashir الnadhir kitaabka la yidhaahdo oo uu lahaa maxamed muxidiin yaxya ibn sharaf imaam nawawi aad u taqaanaan ikhtisaara kitaab lculuum alxadiid oo lagu soo gaabiyey ibn salax uu lahaa ابن كتاب كاس اختصار كنفتي سنة ابن كثير نفتي وسوق جابي كتاب كان باحث الحديث كا مرة بدنا أسئلة تسلسل جابي وحاكل وكمل لها كتاب كله هي التدريب الرابع في شرح تقريب النووي وسوق جابي يساق نفتي سا إمام السيوطي جلال الدين علي وحلي عبد الرحمن بن أبي بكر رحمة الله عليه ويساقنا سقال بقول إيو طبعا سقال كها لكن رك بدنا كثير إيو وأكيد هن قاضي العياض أو كلب وحاوي قاضي العياد ابن موسى نينك اللي يراهدو أفر بقول شن بقول أفرتني خطيب البغدادي إساق نفتيس وحلا جامع الأخلاق الراوي وآداب السامع كتاب اللي يراهدو ليه إمام السخاوي نفتيس كتاب مقعس وكلاه وأولها أبي حفصة نينك اللي يراهدو عمر بن عبد المجيد إساقنا شن بقول إيو تضباطنكي شن بقول سديتنكي إساقنا وحولها ما لا يسع المحدث الجهلة كتاب اللي يرادوا ليه علوم الحديث أبو عمر نينك اللي يرادوا أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن المشهور بابن سلاح اللي حب قولي أفرتني يسد عليه تقريبا كتاب كاس ومن أجود الكتب وكمدها في علم المصطلح مقدمة ابن صلاح اللي يرادا أما علوم الحديث واللي يرادا مقاعدها سامحني أسأقول ليه فتح المغيث في شرح الألفية الحديث وسجن أولى محمد بن عبد الرحمن السخاوي سجن كتاب كاس أيو الله هاي كتب بدنا ولمدها وحالمدها نخبة الفكر كا وابن حجر العسقلاني ولوسو جابي يعني لما مرضى وكسي شرحي كتاب كيسان كلا نزوة النظر كوكو شرحي لا سجع شرحي أحمد بن علي سجن وحو أسديد بقول لي كنتم يسدح لي مالهاس kadib baa marka risaaladan hadda aan tirinayno oo kale ay timid oo bayqooniyada Amr ibn Muhammad al-Bayquni isaga wuxuu ahaa kun iyo 8 meelahaas oo isagana u ahaa marka kutubtaas iyo kutubo badan oo macnaheedu la mid ah ayaa fankan laga sameeyay ma aha fan Albani iyo culimada la midka ahayd qaruntaas joogtay inay ayagu sameeyeen ma aha taada kala tanaaqud ma aha sheekhu hadii uu wax inta qoray xilli markuu la joogo baxthi xadiis inta daciif ama uu yiri حسن لغيره أو كذب أو أركي ضعيف إنه يهك بحث كذب مركو سميه تناقض لمير هذا لكن حالير هذا يعني علم جيسي بحث جيسي وسي بطي يقون تيسي وسي يعني سي بطي علير هذا ألباني أي استناقضه وحيالا بدأ أنت اللي قسم ميل سوى جمعي وحاس واحد معنيه ما صح معه علمي كان عن صوت الماني وذي من أقسام الحديث عدة وشيخ هالكاس أقبل الله علم المصطلح الحديث أما علم الحديث تادون طبعا ده تعريفات كيس وحاوي هو العلم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن وعلمي هو وعلمي قاسو أصول لغبرنا قواعدك أيا لغبرتايو يعرف بها أحوال السند والمتن علمي كان علم المصطلح عليه هذا وعلمي أصول قواعد له لغبرتو سندك إي متنية ومحيتها هي سببتها مركا اقسام تاسي waxaas oo barneen min hayth al-qabul wal-radd midka la qaadanayo midka la qaadanayn ayaa macnaheedu isaga lagu bartaa mawduucdiisa waxa kamid ah sanad wal matn min hayth al-qabul wal-radd
sababaha loo baranayo xataa mawduucus muxuu yahay mawduucus waxaa waaye sanadka iyo matniga xadiidka in lakala barto wax la qaadanayo waxaan la qaadanin faa'iidada uu leeyahayna waxay tahay tamyiizu saxiixi min asaqiimi min alxadiid axaadiida saxda ah iyo kuwa daciifka ah in la kala saaro saasaa micnihii asalkiisu la yidhaahdaa marka xadiid marka la leeyahay xadiid waxaa loola jeedaa xagga luqada waa jadiid ويجمع على أحاديث عن الخلاف القياس حق اصطلاحا وحالي هذا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وواحد النبي لو تيري عليه الصلاة والسلام وقول كيسا كمد أقواش النبي أما فعل كأساق أسمي أفعاش سميت كمدة أما بتقرير وح أكتيس اللي أسمي أما الصفة انت صدق ونقطة خبر كان وحالي هذا يعني وأخبار وسدح أقوال أي معنيه أي علماء أي جليان طيب مركا انتاسي ومعنيه هرودعة أو كتاب كان قيبتي كمد أهو مالين كان رهني إقسام الصحيح مركا اللي سوى قارن شيئا حديث حقوق قيب سماء صان صوت المعني الخبر متوتر وخبر واحد خبر كمتوتر كمركا لير هذا خبر ك حق اللغة وحاوى اسم فاعل waxaa laga soo jeexay min tawaturi ay tataabuci taqulu waxaad leedahay tawatara almataru ay tataabaca nuzuluhu roobkii waa israacraacay mutawatir xadiid iyo axaad labadaasaa loo qeybiya waana soo tilmaamay laakiin xagga istilaaxa waxaa la yihahda waxay dad badan wariyeen caadadu ay diideyso tawaatu'ahum cala alkadib inay been isku raacaan taasaa micnihii caadada diideysa dad badan oo ummadda nabi maxamed ka mid ah inay isku raacaan been inay isku raacaan laakiin waxaa loola jeedaa tawaaturka isagaa inaad hesho sanad waliba oo isna sanadkaasa ka mid ah dad aada u tira badan min kulli tabaqaati sanad in la helo midda kalead waxay tahay an tuxiila alcaadatu tawaatu'ahum cala alkadibi caadadu inay diideyso ama caqligaba uu diidayo inay dadka intaa la eg been isku raaci karaan midda saddexaadna culimadu waxay leeyihiin an yakuuna inuu ahaado mustanadu khabarihim alxisa in yani wax la taaban karo khabarkooda inuu yahay marka sida maxaa loola jeedaa taas ayada samicnaa aw ra'aynaa aw lamasnaa inay yidhaahdaan ama in kaana mustanadu khabarahum alcaqli يعني كقول بالحديث العالمي مثلا فلا يسمى الخبر حينئذ متوتر marka khabarka waa in ay ku wariyaan waan aragnay ama waan maqalnay ama waan taabanay noocaas oo kala ah ayaa macni lagu sheegay tawaturka marka culimada way qeybiyaan xadiis mutawatirka ah wadii ma naqsam alxadiisi mutawatirka waxaa loo qeybiyaa mutawatir lafdi ah iyo mutawatir macnawi ah labadaas loo qeybiyaa lafdiga ma tawatara lafduhu macnaahu kaas macnihi la yiraahdo midal xadiis ban kadaba alayya mutacammidan فليتبوأ مقعده من النار حديث اسغا بخاري كتاب العلم وكسو سارايا مسلم نتيس oo soo saara xadiidka asaga marka maxaa israa raacay hadda waxa israa raacaya waxa warinay 70 raawi ay xadiidka isaga awrisay man kadaba alayhi mutacammidan فليتبوأ مقعده من النار طيب ورواه يعني 70 صحابيين عليه ثم سمع على كثرة ما زادت في باقية طبقات السنة كدب واسيب بدناي انت واحد قدام بس متواتر المعنوي وحالي هذا هو ما تواتر معناه دون لفظه وواحد معنيه اسراعه لفظه اسو كجر مثل حديث رفع اليدين في الدعاء رفع اليدين كجعمه ان كور لو قاده خليga الدعاء فقد ورد عنه نحو 100 حديث لكن حالتها ay ku soo oran كل حديث منها فيه mid walba asaga kamid xadiid kale inuu rafع يدين في الدعاء boqolkaas xadiisada kulay gacmaha in ducada kor loo qaado ku soo arooray laakinaha fi qadaaya mukhtalifa marka lafdiga isma raacin laakiin macnahi ayaa isra raacay fa kullu qadiyatin minha lam tatawatar tawatur lama aha qadiyad walba asaga kamid ah hadii loo fiiriyo yani tawatur ma naqanayo oo macnahi way kala duwan yihiin marka taas isaga culimada ayada naftooda way kala saareen yani kutub aan badnayna waa laga sameeyay imaam Suyuti oo kale ayaa isaga iskale maxamed ibn jacfar asna kitaabka lagu sameeyay khabarka yani khabarul ahad kale yiraahdo nimankan aqlaaniintu ay diideen oo wadii ma naqsam al hadith ciddadaas waxaa kamid min ahadith al ahad jama' ahad بمعنى واحد وخبر الآحاد هو ما يرويه شخص واحد
waxay yidhahdeen caqiida lagama qaadan karo. laakiin waan soo tilmaamay nabiga calayhi salatu wasalaam bacda saxaaba uu diray cali bn abi talib yowm alkhaybara ninka la yihahdo muscab ibn cumayr ila almadina ninka la yihahdo abu cubayda ibn ljaraxa ila albaxrayn waxaa la diray abu musa alashcari huwa min tihama ila alkufa ayuu ahaa 2 sanad uu leeyahay. waxaa la diray saan soo tilmaamay ninka la yihahdo saxaabiga jaliilka ah mucaad ayaa la diray. waxaa loola dirin caqiidu ahaa dadka caqiidada ugu yeero nabigana alayhi salatu wasalaam. idan marka dadkan dhahaayo lagama qaadan karo xadiidka caqiida lagama qaadan karo iyadoo wax ka jira maaha, wax ka jira ma leh. ayib qeybtaas marka waa axaadiiث ulaxaad iyo mutawatir ayaa micnihii qeybtaas uu ahaa. sheekha marka intaas markuu sheegay kadib wuxuu yidhi wadii min aqsaamidaas alifkan iltiqaau saakiniinka waa la cunaa. wadii min aqsaami اlxadiiثi markaad sharxiisa waa dhihi karaysaa. wadii midkani min aqsaami اlxadiiثi aqsaamtu xadiidka cidda way badan tahay, laakiin markaad gabayga tirinayso si gabayga micnihii uusan kaaga xumaanin iltiqaau saakiniinka waa cunaysaa. waxaa leedahay wadii min aqsami اlxadiiثi cidda wa kulu waaxidin ataa waxadda. marka wadii midkani min aqsaami اlxadiiث xadiidka aqsaamtiisu yani aqsaam اlxadiiث mutacaliq biqowlihi cidda ayay ku xiran tahay. wa kulu waaxidin mid walba oo kamid ahna ataa oo sayaأtii waaxda micnaha waxaa waaye sharxiisu waa imaanaya. xadka waxaa loola jeedaa meeshan yani tacriifkiisa ayaa loola jeedaa waana mafcuulu macahu waay meesha ayada ah. ayib sheekhu marka intaa kadib wuxuu yihi xadiidu صaxiixu meesha ayada uu galay. xadiidkii صaxiixa ahaa iyo tacriifaadkiisii ayuu micnihii uu galay oo wuxuu yihi awaluha صaxiixu wahwa matasal ma اtasal ha isku dhihin yani iltiqaau saakinayn waa taqaanaan ayadana waa la tuuraya alifka dhexda ku jira waa tuuraysaa. awaluha iqsaamtii uu soo sheegay aصaxiixun waxaa ugu horeeya xadiidka صaxiixa ayaa ugu horeeya. wahwa xadiidka صaxiixa matasal waa midka micnihii uu xariirsan yahay isnaaduhu sanadkiisa uu xariirsan yahay walam yushada oo yucal yani sanadkiisana uusan shaad ahayn ciladna uusan lahayn. shaadku marka waxaa waaye qof isaga keligii markuu yahay warkiisa la qaadan lahaayo maanta wuxuu khilaafay nin isaga ka aqoon badan imaam shaafici iyo rag badana micnihii tacriifka naftiisa ku sheegayo. waxaa waaye saasaa micnihii ay yidhahdeen. ayib xadiidkan صaxiixa ah sheekhu wuxuu yihi horta صaxiix waa did saqiim. صaxiix haddaad maqasho wax caafimaad qab maxaa kasoo horjeeda wax micnihii xanuunsanaa kasoo horjeeda. laakin wahuwa xaqiiqatu fi اlأجsaami majaaza meesha ayada ah ilan xadiidku wa xanuunsana xadiidku bini aadan ma ah laakiin qeyb majaaz ahaana loola jeedaa saas buu micnaha oola jeedaa. xagga istilaaxa markuu sheekhu uu ka hadlayay wuxuu tilmaamay matasala sanaduhu binaqli cadli daabiti can milihi ilى muntahaahu min gayri shuduudi walaa cilatin. tacriifkaasaa micnihi culamada xagga istilaaxa ay siiyaan. waxaa waaye matasala sanaduhu waxa sanadkiisa uu xariirsamo. awaluhu aصaxiixu aصaxiix waxaa waaye صaxiix lidaatihi iyo صaxiix ligayrihi labadaasu isaga horta siis banaanba u qeybsamaya. ayib marka sheekhu intaas ubuu tilmaamaya. marka waxa sanadkiisa maada marka mawsuula miya maada waxay leedahay 11 yani macnay leedahay maada kaligeed. matasala sanaduhu waxa sanadkiisa ay xariirsadaan oo uu xariirsan yahay oo binaqli cadli daabiti uu soo guuriyey qof caadil ah waana cadaalad waan tilmaamaynaa. daabit ah oo wax xifdisan dabdigana laba u qeybsamaa in kutubtii wax uu ku xifdiyey ama in laabtiisii wax uu ku xifdiyey. wuxuu ka soo guurinayaana can milihi qof isaga lamid oo kale caadilna ah waxna xifdisan ama kutubta ha ku xifdiyo ama laabta ha ku xifdiyo. ilaa muntahaahu bidaayat sanad dadka micnihii sanadka ku jira bilowga ilaa ay dhammaadkiisa ay isku mid inay yihiin min gayri shuduudin isaga waa inuusan xadiidka shaadna ahayn dadkan wax warinaayo walaa cilatin cilana uusan lahayn. ayib tacriifkaasa micnihii ay siiyaan. itisaalu sanad waxaa loola jeedaa
أن كل راو من روايته قد أخذه مباشرة عن من فوقه من أول السند إلى منتهاه. اتصال سندku waxaa loola jeedaa qofkan qofka kale oo isaga yani xagga ka jira inuu wax ka soo qaatay bilowga sanadka ilaa dhamaadkan inay saa u kala qaataan. cadaalatu ruwaadkana waxaa loola jeedaa ay in kullu raawin min riwaayati yani mid waliba oo wax warinaya inuu bikownihi musliman baaliqan caaqilan غayra faasiqin walaa مخروم المروءة وانتاس انه معنيه ككوban yahay inuu yahay qof muslima marka hore qofka caadirka leeyahay caaqilna ah faasiqna aan ahayn sumcadiisana macnihi ay anshaxiisana uu yahay anshax wanaagsan oo intaasa macnihi culimadu ay siiyaan. meesha marka waxaa nooga soo baxay shuruudan marka xadiidkan uu leeyahay waxaa waaye laba shuruudood ayaan siinayna: itisaalu isnaadi, cadaalatu ruwaati, tamaamu dabdi, iyo intaas waxaa la yihahdaa يعني waxaa la yihahdaa bishuruud thabutiya la yihahdaa. itisaalu isnaadka sanadku inuu xariisan yahay, cadaalatu ruwaad ruwaadka wax soo wariyey, iyo tamaamu dabti. saddexdaas waxaa waaye thabutiya la yihahdaa. asalbiyadana waxaa waye shartaani humaa intifaau shuduud iyo intifaau lcila. labadaasna waxaa la yihahdaa salbiya la yihahdaa. intaas ay ku kala qaadaan. waxaa loola jeedaa marka saan tilmaamay xadiidkan صaxiixa ah أن يروى راوي عن من فوقه بإحدى الطرق التحمل الصحيح inuu raawiga wax uu ku wariyo saddex طرق oo midkooda macnihi saas u yahay. waxaa ka soo baxaya marka hadii la yiraahdo hadalka isaga waxaa ka soo baxaya yakhruju المدلس والمنقطع والمتصل والمعضل والمرسل والمعلق لأنه كل أقسامtaas oo gadaalka imaanaya mudalliska iyo xadiidka maqtuuca iyo mucdalka oo laba sanadkiisa ay ka dhaceen iyo mursalka iyo mucallaqa afka hore uu ku jira sheekhu intaasi sanadkooda ma xariisana bixaalin min alaxwaal. saa darteed ayagu kuwaas waa laga saaraya. ayib, shardu thaani waxaa waaye shardiga labaad cadaalada. haddii itisaalu sanadka aan u qeybinay yani thubutiya iyo salbiya haddaan u qeybinay itisaalu sanad iyo cadaalatu ruwaat iyo tamaamu dabt, intaas waxaan nidhi ayadu waa shuruudu thubutiya la yihahdaa. shuruudu salbiyana waxaa intifaau shuduud inuu ka maran yahay shaad. itisaalu sanadku waa inuu xiriirsan yahay qof walba qofka wax uu ka warinaya balowga ilaa dhamaadka inay yihiin dad caadilin ah oo micnihii wax xifdisan ama kutubta ha ku xifdiyo ama ha ku xifdiyo laabtiisa ha ka xifdiyo. ayib, mid labaadna waxaa tahay cadaalatu ruwaat oo aan sheegnay inuu muslim yahay, baaliq yahay, caaqil yahay, غayr faasiq walaa yani anshaxiisana uu fiican yahay uusan ahayn qof lagu tilmaamaayo maqruumi lmuru'ati yani anshax xumo qof aan gelin. ahlu xadiidkana aad ay ugu xishoon jireen dadka qaar inay wax ka wariyaan. salbiyaadka iyo ijaabiyaadka markaan sheegnay kadib shardiga labaad waxaa waaye cadaalatu ruwaat. cadaalatu ruwaat yucarifu bacdu alculamaa waxay ku tilmaamaan culimada qeyb ka mid ah sa hadda soo tilmaamay malakatu taxmilu saaxibaha cala almulaasamati الtaqwa wاlbucdi can alkhawaarib almuru'a. waana sharci inta qeybta haddaan idiin soo sheegay in ka mid ah. marka taasaa micnihi ay ku tilmaamaan. kaas isaga ah marka waxaa lagu xiray fayucarifuuna alcadlu biannahu muslim baaliq caaqil saalim min asbaabi alfisqi wa khawaarib almuru'ati. saasay micnihii ay ku sheegaan oo ku tilmaamaan. ayib, qeyb ka mid a culimada tacriif kale siiyaan ayaga oo kaa ka duwan. waxay leeyihin hiya istiqaamatu min siirati wadiini tamnacu saaxibaha min ikhtiraafi alkabaa'iri walisraari can الsakaa'iri taxmulu cala almulaasamati الtaqwa wاlmuru'a. waana laba tacriif oo isku mid ah midka adiga aad doontaba gasho. labadaas tacriif labadaba micnihii culimadu way siiyaan. marka kaad doontaba waa siin karaysaa, wax dhiba ma laha. wa hada ra'yi kathiir min alculamaa ayaa micnihii taas ayada qabtay. waxaa waaye saciid ibn musayib oo kale, ibrahim الnakhaci, cabdullahi ibn mubaarak, washaafici, ibn xabaan, wadahabi qeybtaysa soo galayaan ayagoo dhanba sida bacd culamaana ay kusoo guurinayaan miisaan اlictidaal oo kale ayaa lagu keenata ayada nafteeda. ruwaadka marka wax dabisan ma kala qaadaynaa oo micnihii saas ma u samayn karaynaa? ha, waa la kala qaadi karaya. haddii aan nidhi itisaalu sanad, cadaalatu ruwaat, dabd ruwaat iyo cadam shuduudi laa yakunu xadiiثan shaadan washuduudu huwa mukhaalafatu hiqati liman huwa awthaqu minhu. marka shuduudka waxaa la yidhaahdaa haddaan soo kala qaadno raawi waliba in raawiga kala horta mubaashara si toosa wax ugu wari waayo. ko
mid labaad waxaa waye cadaalat ruwaad waan soo tilmaanay waxaa lagu tilmaamay saddexaad waxaa waye dabtu dabdigana waxaa waye kullu raawi min raawi kaana taama dabt midka kale wax ka warinaayo inuu micnihii yani uu yahay mid dabti ah ama wax xifdisan uu yahay ama kutubta ama laabta cadam shuduudi ay laa yakun alxadiida shaadan xadiidka waa inuusan shaad ahayn shaadkana waxaa la yidhaahdaa yani shuduudka huwa mukhaalafatu hiqati liman huwa awthaqu minhu inuu qofka uu khilaafo qof isaga looga kalsoon badan yahay laakiin cabdilcaziz ibn mukhtaar oo kale riwaayadan musqusha marka la galayo waa uu keenaa bismi illaahi ayuu micnihii hore uu keenaa ayib cadam alcilati waxaa loola jeedaa an laa yakuna xadiidan yani macluul xadiidka inuusan ahayn xadiid micnihii xanuunsan oo jirin walcilatu waxaa waye ciladuna waa sababu gaamidun khafiy cilada waa cilad qarsoon ay noqon karaysaa oo qarsoon yani yaqdaxu fiihi sixat alxadiid oo dhaawacaysa xadiidka sixadiisa dhaawacaysa inuu saxiix u noqdo ciladu way dhaawacdaa maca ana daahira asalaamati minhu daahirka xadiidka markaa fiirisato hadda xadiidka daahirkiisa maxaa loola jeedaa yani xadiidka ilan waxaan sheegnay sanad iyo matn inuu leeyahay haddii xadiidka sanadkiisa micnihii matnigiisa uu sax u yahay oo ciladu ay ka jirto sanadka waa rijaasha laakiin haddii matniga xadiidka naftiisa cilad ay jirto waxaa laga yaabaa in xadiidka sanadkiisaas markaad aragto is tirahdo xadiidkan wuxuu qaba ma leh maca anahu cilad khafiy ah oo qarson oo qaamid yaa yaqaana marka culamo ayaa alla subxaana wa tacaala u furay ila culamadu inay yani ay wada yihiin muxadithiin micnaheedu ma aha cilalku inay wada yaqaaniin asxaabu lcilal si gooniya loo yaqaanaa dadka muxadithiinta ah micnaheedu ma haynaysan cilada aqoon laakiin waa lagu kala duwan yahay saa darteeda bacd alculamaa waxay ka qoreen cilal ay qoreen ka imaam daar qudni oo kale waxaa la mid ahaa axmed ibn xambal kitaab alcilal uu leeyahay waxaa la mid ahaa dadka wax ka qoray kutubo badan imaam tirmidi kitaabkiisa cilalka oo kale rag waxaa jira cilada bis ah xadiidka mutakhasisiin ku ah oo saas u raadiya marka ciladu waxaa laga yaabaa mid qaamidun khafiyun mid qarsoon oo xadiidkana dhaawacaysa daahirka xadiidkana orto inaad tirahdo xadiidkan daahirkiisa wuxuu qaba ma laha maca anahu wuxuu leeyahay yani cilad ayuu leeyahay marka shantaa sharuud ayaa micnihi xadiidku markuu saxiix u yahay saxiixu lidaatihi iyo saxiix ligayrihi nooco doona ha ahaado ama xasan lidaatihi ama xasan ligayrihi maxaa farqiga u dhexeeya saxiixu ligayrihi saxiixu lidaatihi hadduu yahay itisaalu sanad cadaalat ruwaad dabt ruwaad cadam alcila cadam shaduud shantaa shardi xadiidka hadduu leeyahay ayaa xadiid saxiix la yihahdaa laakiin xadiidku xasanka wuxuu ku noqday oo martabada kaliya sida uu tilmaamaya imaam xaafid ibnu xajar alcasqalaani kitaabkiisa nukhbat alfikr waa uu ku tilmaamay wuxuu leeyahay fain khafa dabtu falixasanu lidaatihi haddii dabdiga ama xifdiga uu hoos u dhaco xasan lidaatihi yaa loo yaqaana martabadaasaa micnihii hoos uu geeyey ayib laakiin sanadka mithaalka haddaan idin siiyo mithaaluhu xadiidka bukhaari uu soo saaray xadiid cabdillaahi ibn yusuf akhbarna malik can ibn shihaabin maxamed ibn shihaab zuhri can maxamed ibn jubayr ibn muطcim can abihi qaala samictu rasuul اllahi sal allahu alayh wasalam qara'a fi lmagribi bituur xadiidkaas siiqadaas marka siiqat اlaadaa iyo siiqat taxamul xadidka horta ku wariyey saxaabigan jubayr ibn muطcim xadiidkaas wuxuu maqlay nabiga alayh salam isagoo maqrib dukanaya watuuri wakitaabi lmastuuri fi raqi lmashhuur soo akrinaya uu maqlay markaasuu wuxuu leeyahay wuxuu sigay qalbigayga inuu micnihii uu duulu yidhi markuu gaal u ahaa siiqada isagoo gaalka ah xadiidka ma laga qaadan karaa siiqat ladaa maya waa siiqatu taxamul u ahaa markaas xadiidka waa xambaaray markaasuu maqlay laakiin wuxuu gutay oo xadiidka uu sheegay xadiidkan wuxuu sheegay marka uu islaamay kadib laakiin marka hore hadduu sheegi lahaa culamadu waxay leeyihin siiqatu taxamul iyo siiqatu laadaa ayaa loo kala saaraa marka qofka muslimka xadiid nabigu ka maqlo waa laga qaadanaya lakin qofka gaalka hadduu xadiid uu faafinaya markaas ayada dee isaga kufriga ku jira ee wax ka weyn waxaa laga yaaba inuu ku been abuurto sanaduhu mutasil xadiidkan isaga sanadkiisa waa micnihii waa xiriiraa hadda nin walibana sheekii uu maqlo waxu ka qaatay wa ama cancanatu malik ibn shihaab وابن جبير فمحملة على اتصالي لأنهم غير مدلسين marka taasaa lagu xambaaraya idagu ma aha dad mudalisiin ma aha labadaas qofood oo dambe ayib maxamed shihaab zuhri iyo ibnu jubayr iyo micnihii waxaa loola jeedaa maxamed ibnu jubayr oo kale ayaga mudalisiin ma ahayn marka labadaasna waa laga micnihii waa laga saaraya haddii la kala saaro
عبد الله بن يوسف وثيقة متقنة. مالك بن أنس إمام حافظ. ابن شهاب محمد بن شهاب زهري فقيه حافظ متقنة في جلالته واتقانه. محمد بن جبير وثقة. جبير بن مطعم وحاوي صحابي waay marka sanadkaas oo kale ayay culimadu tusaale ahaan u soo qaadaan marka yani sanadkaas oo kale waa uu fiican yahay فعلى كل حال اتصال sanad kana taas ayadu macnaheedii halkaas ay macnaheedii ayadu ay soo gashaa marka taas waa iska tusaale yar laakiin waxaan rajaynayaa ayagoo ka tiro badan in macnihii uu yimaado sheekhu intaa kadib wuxuu tilmaamay intaasuu macnihii uu tilmaamay qaabkaas macnihii wax loo kala wariyo cadaaladii iyo macnihii intaasuu sheegay waxaa marka xadiidku hadalka sheekha wuxuu ahaa marka yarwihi wuxuu yihi isnaaduhu walam yushada oo yucal awaluhu waa saxiixi wahuma اtasal isnaaduhu sanadkiisana walam yushada oo yucal ya-doo la kor dhaban way timid yaa shudda la yidhaahdo ayib yarwihi waxaa warinaya xadiidka caadilun qof caadil ayaa warinaya daabitun oo micnihii wax xifdisan can milihi saan soo tilmaamay qof isaga la mid ayuu wax ka warinaya qofkaasoo muctamadun la ictimaadayo fii dabtihi dabdigiisa iyo wa naqlihi soo guurinta wax uu soo guurinayana qof lagu kalsoon yahay uu yahay yani waa qof fiqa ah oo isagu aan been sheegayn cadaaladdu waxaa laga yaabaa qofka inuu kula joogo oo kula soo dukado oo salaadihii aad ku aragto laakiin uusan caadil ahayn saa darteed kutubtu culimmadu markay tacriifinayaan waxay tacriifka ugu sameeyeen in la ogaado qofka caadilka ah waxaa lagu soo daray anshaxaa lagu soo daray marka haddii uu yahay qof intiisa kaloo fiican uu fiican yahay laakiin anshaxiisa uu xun yahay ma dhamaystirna cadaaladdu marka laa tathbut ila bilhayati aلظaahira yani ma sugnaanaysa ilaa hay-ad daahir ah unbay iyadu ku sugnaataa ayib dabdiga shardigan oo dabdiga xifdiga ahlu xadiidku way ku kala duwan yihiin nin baa wax xifdisan laabtiisu ku xifdisan yahay ninna kutubtiisu wax ku xifdiyey kaa kutubtu wax ku xifdiyey haddii uu yidhahdo maskaxdaydan wax ka sheegaya lagama qaadan karo sababtoo isagoo kuma xifdisna xadiid ahaan uma xifdisna lakin kutubtu ku xifdisan yahay laakiin haddii kutubtii wax uu ku xifdiyey oo rabo inuu wax u akriyo haddii kitaabkii uu dhiibo isagoon dhammaynin oo ardayga uu siiyo oo nimanka intay ka qaadaan ay wax ku daraan ama ay wax ay ka dhimaan oo hadhow dadkii saa lagu siiyo culimadu way ka digeen xataa talqiinka waxa la yihahdaa man talaqana fayulaqinu fahuwa daciif man talaqana fayatalaqanu fahuwa daciif marka ma banaana qof agtaada jooga inaad wax inta weydiisid markaad wax weydiisid kadib qof kale afka ugu rido taa nafteed culimadu way ka digeen ninkaan marka kitaabkiisa waa inuusan dhiibin oo kitaabkiisa u haysto ilaa micnihii kitaabka u dhameeyo oo dersiga u dhamaada ardayga waa inuusan kitaabka siin hadduu kitaabka waxa ku xifdisan yahay marka kitaabkaas ayaa wax laga weydiinaya marka dabdu cinda ahli lxadiidi nawcayni dabdu sadri wa dabdu lkutubi alxaafid ibnu yaxya ibnu nuciin wuxuu leeyahy humaa habtaani habtu xifdin wa habtu kitaabin wa abu saalix katib leythi habtu kitaabin abu saalix leyth micnihii kaatibkiisii oo wax u qoraayey wuxuu lahaa yani habtu kitaabin ayuu ahaa tadhiibka ayaa micnihii lagu soo sheegaa imam khatib albaghdadi fi kitaab alkifaaya wuxuu ku leeyahay ana marwan ibn moxamed wahuwa marwan ibn moxamed ثلاثة ليس لصاحب الحديث عنهما غني الحافظ والصدق وصحة الكتب فإن أخطأت واحد وكانت فيه اثنان لم تضره إن أخطأ في الحفظ ورجع إلى صدق وصحة كتب لم يضره ساس له كتاب كسل كفاية وحقوق الشيخ مركا مروان بن محمد وهو ابن ساس الشيخ وحيري ثلاثة سدح ليس لصاحب الحديث عنها غني صدح شيء قفك صاحب الحديث كأه
kama micnihi kama kaaftoomo yidhi kama kaaftoomo kama deeqtoomo xifdiga in wax la xifdiyo iyo sidqiga in runta la sheego iyo waa sixatu lkutub saddexdaas haddii mid ka mid ay qaldoonto dhib ma laha waxba kama dhibayso waxba kama dhibayso yidhi waxaa kaluu yidhi waqaala aydan طaala الإsnaadu wasayarjacu الnaasu ilى اlkutub falأwlى dabd الصdr marka waxaa ugu horeeya dabd sadrka ayaa ugu horeya ibn xajar isaga naftiisa taas uu tilmaamaya wuxuu leeyahay inuu sugnaado waxa uu maqlay uu sugo bxayثu yatamakanu fi istixdaarihi mata shaa haddii qofki wax uu xifdiyo waa nusrat nadarku saasuu ku leeyahay iyo fatxu lmuqiidka lisakhawi labada waa lagu soo guriyaa haddii qofka uu yahay qof wax xifdisan markiiba micnihii waxaa kusoo xaadiraya waxa uu rabay ibnu xajar saasuu leeyahay marka ayib noocan marka xifdiga noocaasa ugu wanaagsan waxaana ka mid ah noocaas waxaa ku tusinaya saxaabada nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam والنوع الأول كثير في رواته أنه قال أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبي هريرة وحuu leeyahay ما من أصحاaب النبي أحد أكثر حديثا عنه مني أبي هريرة naftiisa dabdigiisu tilmaamaya إلا ما كان عبد الله بن عمر بن عاص فإنه كان يكتب ولا أكتب saas isaga uu leeyahay طيب ka isaga marka bukhaariga lagu soo saaraa kitaab الcilmi kitaab lagu soo saaraa wuxuu leeyahay marka abi hurayra saxaabada nabiga nin iga cilmi badnaa ma leh laakiin cabdillaahi ibni camar ibni caas ayaa micnihii iga xadiid badnaa uu yidhi saxaabada nabiga nin iga xadiid badnaa ma laha cafwan saasaan ula jeedaa nin iga xadiid badnaa ma leh lakin cabdillahi ibni camar ibni caas ayaa iga xadiid badnaa sababtoo ah wuxuu ahaa nin wax qora waxna akriya laakiin aniga waxaan ahaa qof wax akriya wax ma qori jirin uu yidhi marka martabadaas koowaad cabdillahi ibni camar ibni caas ayaa galay martabada labaadna abi hurayra galay laakiin nabigan waa u duceeyey abi hurayra markii uu ashtakooda u rasuulka alla wax badanaan xifdiyaa waan ilaawaa nabiga go-aaga kasoo yidhi waatuu sheegaya lahaa walaalaheen waxay igu leeyihiin abi hurayra axaadiidkuu badiyey marka walowlaa aayataani fi kitaab illaahi laba aayadood oo alla subxana wa tacala kitaabkiisa ku jirta hadaanan ahayn xadiid ma sheegeen in aladiina yaktubuuna ma anzalna min albayinaati walhuda min bacdi ma bayanahu linnaas أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم labadaas ayadood micnihi uu sheegayo labadaas ayadood daysan ahayn xadiid ba ma sheegteen uu yidhi markay micnihii ay yidhahdeen abi hurayra axaadiisu tira badan marka wuxuu kaluu leeyahay marka walaalaheen ay beerahoodii iyo shaqadoodii iyo camalkooda markuu mashquuliyey aniga xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaan raacin jiray uu yidhi marka martabada labaad ayuu galay cabdullahi ibni camr ibni caasna dhowr kun oo xadiid isaga uu warinayo ayib taas marka waa martabat lxifdi oo ay micnihii ay culamada islaamku ay tilmaamayaan waxaa kaloo la mid ah wuxuu leeyahay israa'iilu ibn yunis ninka la leeyahay wuxuu yidhi kuntu axfadu xadiiثa abi isxaaq kama axfadu suurata min alqur'an marka sida qur'aanka suuraddiisa loo xifdiyo kala micnihi aan u xifdin jiro yidhi waxaa kaloo lamid ah labada dabdi aan sheegayno qolo isku jamacsataa micnihi la heli karaa dabd الصdri wa dabd الkutub oo ku dadaalaya calى taxdiid min kutubihim ayib waxaa ka mid ah arrintaas ayada ah dadka laga heli karaayo labadaba micnihii oo jamciyey imaamu axmed ibn xambal waa caliyu ibn اlmadini wa ibn mubaarak وأبو زرعة الرازي وابن دزيل وغيرهم رقاس لبضا way جمعيين ضبط الكتب ضبط الصدر لبضا way lahayn xaafid علي بن علي المديني oo ahaa ibn المديني oo sheekh البخاري ahaa رحمة الله عليه wuxuu leeyahay laysa في أصحاabina أحفظ min أبي cabdاللahi أحmed ibn حambal dadkan asxaabteyna nin micnihii ka xifdi badan أحmed بن حmbل ma jiro وبلغني أنه laa يحadiث إلا min kitaabi waxaana lay sheegay inuusan dadka xadiid u sheegayn ilaa kitaabkiisa walana fiihi uswaة xasana أحmed بن حmbل oo labadaba micnihii jamciyey haddana markuu dadka xadiidka u sheegayo kitaabkiisu la kala bixi jiray أحmed بن حmbل waxaa waaye saasuu ahaa
asaga naftiisa axmed xambal markuu tilmaamayey dakhalat salaad khalaas afil insha allah halkaasaan ku joojinayna insha allah waa salaadii soo gashay jazakum allahu khayran subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa ant astaghfiruka wa atuubu ilayk